السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نبضي داوديلي دلهانتي بميل كستو joogtaan kusoo dhawaada barnaamijkeenii duurjoogta barnaamijkeenan oo ah qaybtii shanaad waana qaybtii ugu dambeysay ee taxanaheenii dhulka Botswana iyo weliba Okavango Delta balse marka hore fadlan nagu soo biir oo ka mid noqo taageerayaasha channelkan subscribe garayso guji si aad ula socoto muuqaalada aanu mar walba soo galino una noqoto qofka ugu horeeya ee helaya warbixinaha iyaga dooro calaamadda jeleska amba gambaleelka sidoo kale like-ta ku dhufo oo share garee muuqaaladayada si ay dad badan u gaaraan fadlan haddii ay kula tahay inaad fakarkaaga ka dhiibato ama aad fakarkayaga nagu taageeri karayso qaybta commentiga noogu reeb fariin ama aragtidaada ka dhiibo inta haddaad samayso aad baad u mahadsan tahay goobtan waxaa ku nool xayawaanka loo yaqaano ay duureedka waana kuwa ugu khatarsan Afrika dhammaanteed waxay noloshoodu ku xidhan tahay ugaarsiga waxayna maanta ugu talagaleen inay ugaarsadaan durba waxay bilaabeen ugaarsigoodii waxaanay soo weerareen koox dameer farow ah waxay bilaabeen dameer farowgii inay iska difaacaan ay duureedku usbuucyo iyo maalmo waxba ma cunin gaajo badan oo hayso awgeed ayuu u geli karaa khataro badan dameer dibadeedku waa isdifaacay waxaanuu ku qaaday dagaal weyn ay duureedkii maantana waxba ma calfan qolo kasta waxay ku noqotay dhulkeedii iyo weliba xuduudeedii duurjoogta Okavango Delta si nabad ah ayay ugu nool yihiin maadaama ay qoysas yihiin mid kastaana xuduud nabadeed uu leeyahay waa dhul ugaarsadaha u wanaagsan marka loo eego baaxadda dhuleed balse waxa caqabad ku ah isku tiirsanaanta ugaadha iyo iskooxaysiga ay ku nool yihiin duurjoog kasta
kuwani waa 6 nooc shimbireed qaar ka mid ah oo ku nool Afrika. waxay noloshoodu ku xidhan tahay webigan. waxay iyaguna quutaan ama cunto ka dhigtaan kalluunka iyo xayawaano kale oo yaryar oo ku nool webiga gudihiisa. waxay ka yimaadaan meelo ku dhow webiga oo xagga ah ama dhulka sare ee webiga ah oo mar walba uu sarreeyo ama buuraha ah ayay ka yimaadaan xayawaankan shimbiruhu. kuwani waa nooc ka mid ah shimbiraha waxaanay ka kooban yihiin ilaa 300 oo midh waxaana ugu badan kuwan waxaanay ku nool yihiin goobtani. shimbiro kasta waa iskooxaysi iyo qoysas sida ay noloshoodu ku tiirsan tahay. kuwani waa shimbiro kale oo noocyadii 6 ahaa ka mid ah. waxay ku noolaayeen dhulkan 100kii sane ee ugu dambeeyay kuwaasi oo halkaa iyagu sidaasuu noloshoodu ugu tiirsanayd. qaybo iyo weliba koox iyo qoys ayay shimbiraha badankoodu u wada nool yihiin. dhulkan ama webigan hareerihiisa ee Okavango waxaa ku nool maroodiga ugu badan qaaradda Afrika ama marka laga yimaado Afrikada dhexe maroodiga ugu badan ayaa goobtani ku nool.
maalinta badankeega isagu wuxuu ku qaataa biyahan dhexdiisa, waxaana ay u tahay noloshiisa qayb ka mid ah inuu mar walba ku qaato. marka uu biyaha ku maydho kana soo baxo waxa uu noqdaa midab cajiib ah oo isha bini'aadanka soo jiidanaysa. waxa uu ka yimaadaa meel u jirta webiga 24 mayl. duurjoogta halkan ku nool waxay ka nabad gashay xayawaanka halista ah ee loo yaqaano yaxaaska, kaasi oo noloshiisu u suuro geli weyday inuu halkan ku noolaado maadaama ay biyuhu ama goobtu biyuhu ku jiraan ay gaabnaanayso, marmarka qaarna xilliga jiilaalkoo kale uu uumibax samaynayo webigu. kadibna ay meeshu isku beddelayso meel milix ah, balse xayawaanka kale oo dhan iyagu way rabaan in ay sidaasi noqoto oo sanadkii hal mar markay u noqoto waxa jidhkoogu u baahan yahay milixdaasi. fadlan nagu soo biir oo ka mid noqo taageerayaasha channelkan. Subscribe garayso, guji si aad ula socoto muuqaalada aanu mar walba soo gelino, una noqoto qofka ugu horeeya ee helaya warbixinaha yaga. Dooro calaamadda jeleska amba gambaleelka. sidoo kale like-ta ku dhufo oo share garee muuqaaladayada si ay dad badan u gaadhaan. fadlan haddii ay kula tahay inaad fakarkaaga ka dhiibato ama aad fakarkayaga nagu taageeri karayso, qaybta commentiga noogu reeb fariin ama aragtidaada ka dhiibo. intaa haddaad samayso aad baad u mahadsan tahay. waa tahay daawadayaal, barnaamijkeennii intaas ayaynu ku soo gabagabeynaynaa, kaasi oo ku saabsanaa dalka Botswana iyo weliba duurjoogtiisa ilaahay qaniga uga dhigay. inta aynu barnaamij kale ku kulmi doono, dhammaantayo waxaanu leenahay nabadgelyo.